السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي هو دقة حسن عبدي. كنت تخصصتي علم psychology لو يقانو شهادة سرنا كديارسي معموليست عافماتك برا سرنا كأه جامعة هالطلقة وحن أساسنا حرون لما قاع بحذي هارت بيت هيل سنتر oo ka shaqeysa dhamaan adeegyada caafimaadka ee xarun caafimaad ay bixin kareyso si ay u dheer tahay adeega loo yaqaano cilmi nafsiga ama la talinta bulshada adeegyadan u qabano bulshada qaybta psychology marka laga hadlayo wax kamid ah in qofkii lagala taliyo jaamacadaha oo loo yaqaano career counseling waxa la mid ah qofkii in muxuu problem ka cabanayay in isagana lala tacaalo xaaladiisii hadii stress noqoto hadii depression noqoto problems ka badan ee psychology-ga ku jira iyo muxuu xiriirka labada qof ka dhaxeeya oo muxuu noqonaya marriage ama relationship counseling oo iyaduna aanu aragnay in aad ugu badan tahay problems badan laba qof oo nolol wada wadaagay in problems badan ay la kulmaan marka adeegyada psychology-gu aad bay u badan yihiin halkan kuma soo koobi karno laakiin saddexda adeeg ayaa ugu badan psychology ama cilmi nafsigu waxa weeyaan barashada uu qofku baranayo bulshada psychology markan ku biiray marka laga tago waxaan dadka u qabanayo waxa aad iga caawiyo waxa weeyaan inaan nafteedii barto soo dadka loola dhaqmayo qofku inuu dareenkiisa uu xukumi karayo dareenkiisa inuu aqoonsan karayo kadib uu la tacaali karayo psychology marka hadaan isku dayno inaynu qeexno ama cilmi nafsiga hadaan isku dayno inaynu qeexno waxa weeyaan barashada la baranayo maskaxda qofka iyo hab dhaqankiisa marka maskaxdii iyo hab dhaqankii ayuu xiriir ka dhaxaysiinaya taas marka mar walba la yiraahdaa qofka hadii maskaxdiisu ay caafimaad qabto marka leena marka ay caafimaad qabto Soomaalihan waxaanu u garanaa qofku inuu ka caafimaad qabo waali laakiin problems badan baa qofka ku jira oo inuu isdhaafsiisino ama aynu repress gareeno sida psychology lagu sheego taasna waxay aad u saameynaysaa hab dhaqankiisa marka psychology waxa la bartaa maskaxda iyo hab dhaqanka qofka horta cilmiga psychology waa cilmi ku cusub geeyiga Soomaalida muxuu aadna looma fahansana waxa la yiraahdaa qofkii hadii uu xataa uu tago xarun caafimaad yar tahay laakiin hadii uu tagana waxa imanaysa qofkii la takooro ama qofkii uu qarsado marka way yar tahay inta qof ay ku soo dhiirada in uu nala soo xiriiro oo marka laga caawiyo mashaakilka problemska haysta ee nafsiyanka ah badanka waxa ku yimaadaan waa qaab online ah intaan soo shaqeynay ilaa hadda muxuu way adag tahay ama waxaan oran kareynaa waxa la qaban karayaa adeeg dhameystiran markay bulshadii ay fahanto psychology wuxuu yahay ay fahanto shaygan inuu yahay shay caadi ah oo laga wada hadli karayo shay caadi ah oo qofku uu u tagi karayo sidoo xanuunada kaleba ugu tago dhakhtarka lagana daweyn karayo marka aad bay u adag tahay in bulshadii adeega loo qabto laakiin waxaan ku guda jirnaa mar walba oo anigu personal ahaan intaanan xataa xaruntan aanan furay aan ka shaqeyn jiray waxay ahayd wacyigelinta psychology-ga oo barnaamij dhan oo YouTube ka baxa aanu diyaariyay marka hore waxaan oran karnaa adeega waxa dadka loo qaban karayaa markay dadkii ay fahmaan psychology wuxuu yahay generationka haddana waxaan rajeynayaa inay dhaamaan sidii hore oo at least ay ka wacyi qabaan psychology insha Allah ay ku dhiiran doonaan inay tagaan xarumaha caafimaadka marka aanu waxbarashada bilaabayay ama ilaa yaraanteedii waxaan jeclaan jiray waxa loo yaqaano medicine-ka ama cilmiga dhakhtarka ilaa yaraanteedina waxaan jeclaa inaan dhakhtarad noqdo 2 sano markaan ku guda jiray marka cilmigii medicine-ka ahaa on ogahay la hadda marka inuu hamigeyga ku jiro insha Allah maalin aan ka dhaweyn doono ayaa marka arkay in cilmigii medicine-ka almost aan ku jirno arday content gaaraysa psychology-gina uu yahay 3 ilaa 4 arday mar walba waxay ku jirtay marka muxuu dareenka ah inaan jecelahay inaan dadka dhageysto taas marka keentay inaan psychology ku biiro marka ma yahay shay igu jiray oo jaamacadu bay igu horeysay kelmad psychology inaan barto laakiin waxaan arkay in dhakhaatiir badan ay wadanka u soo baxayso oo waliba haynagu filnaan waayaan laakiin dhakhaatiir badan ay wadanka u soo baxayso marka waxay isweydiiyay bal dhinacan kale hadii aad gashid maxaad ka qaban kartaa marka fikirka ah inaan psychology ku shaqeeyo sidaas ayuu ku yimaaday bulshada horta isbedel weyn ayaa ku iman karay hadii kelmadda psychology ay fahmaan oo kaliya iyadoo la gaarin ba in adeeg loo qabto marka hadii qofku uu barto psychology-ga walow course-na ahaado ama uu raadiyo psychology wuxuu yahay waxaan aaminsanahay waxa iman doonta problemska badan ee bulshadeena ku jirta inay yaraato
sidee u yaraanaysaa imika kaba soo qaad laba qof baa is haysta oo maanta haddaan anu qof caayo qofkii uu igu xanaaqo waxa dhici karaysa in labadii qof ay islaayaan halka ay ku burburto saaxiibtinimo ama ay ku burburto shaqo jirtay laakiin haddii imika anu ogahay for example oo kale qofka inuu wax kale ka xanaaqsan yahay ama aan iraado okay malaha qofkan adiga kugu ma xanaaqsana taasi wixii keenaysa markaa in labadii qof ay wada hadlaan oo wada fadhiistaan halkaana markaa lagaga hortago problem iman kari la markaa waa example yaro fudud laakiin waxaan aaminsanahay in problemiska ugu badan ee dadkeena isku haystaan ama isfahan la'aanta ugu badan ee dadku ay isku haystaan ama naftooda ha noqoto ama qofka ay xiriir la sameynayaan ha noqoto ama qofka wax la baranayaan ha noqoto waxaas oo dhan baa yaraanayaan aaminsanahay waayo psychology wuxuu ku barayaa naftaada wuxuu ku barayaa sidaad jeceshahay inaad u dhaqantid wuxuu ku barayaa waxyaabaha ka xanaajiya waxyaabaha aan ka xanaajin waxyaabaha aad aqbali karis waxyaabaha aan aqbali karin psychology marka naftaadii ayuu ku barayaa marka naftaada baratidna waxa fududaanaysa inaad dadkii kale aad la macaamisho marka saasan aaminsanahay inuu psychology hadii ay adeegyada ay dadku muxuuha ay qaataan ama ay bartaan psychology in waxyaabahaas oo dhan ay inoo faa'iideynayso